Ain't my first rap, mate. What the is that? Woo! السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan kale maanta waxaynu ku eegi doonaa qabiilkan kale ee la yaab kale ee degan dalka Cameroon iyagoo ilkooda u qoraya qaabka libaxbadeedka oo kale hadaba ninkan ayaa maanta soo booqan doona isagoona tagaya bariga fog ee dalka Cameroon halkaas oo dalxiisayaasha badankooda aanay tagin si uu la soo kulmo qabiilkan isku geynna markay soo socdaan 7 saacadood iskugu jira wada rafa iyo wada caadiga waxay soo gaarayaan ugu dambeyn qabiilkan dhowrkan nin feeraha qaawanayaan soo dhaweynaya iyagoona salaamaya Joko. Is Joko? Hello. Joko. Joko. luqadooda ayayna ku salaamayaan alaabtoodii waxay siteen waxay kaga dhex tagayaan gaariga waxayna kabalaan ku raacayaan raggan si ay keynta u galaan We embark into the forest barefoot. inta ay dhexda sii socdaan quraanjadan ayay wadada kula sii kulmayaan iyagoo kabala waliba dariiqan ay sii marayaan waa meel kayna wax walba way cuni karaan quraanjooyinkan qaar ka mid ah sun bay leeyihiin sidoo kale baasha yar diirta la mooday meesha taala ay qaadayaan iyagoo labada nin cadaankaana u fiirsanaya kadib way soo soconayaan kaynta kabalaanta ayaa lagu soo dhex marayaa ilaa 45 daqiiqo markay soo socdaan meesha ay deganaayeen qabiilku soo dhawaadaan codadkan ay maqlayaan iyo qayladan iyagoo markaaba qiyaasay inay soo dhow yihiin ama ay ku soo dhow yihiin meesha ay qabiilka deganaayeen Listen, there's all kinds of chirps and squawks and a bunch of screaming. kayntan ay imika dhex marayaan waa mid ka mid ah qiimaha ugu waaweyn adduunka oo dhan waxaana lagu magacaabaa The Green Heart of Africa ama wadnaha cagaaran ee Afrika waxaana sidoo kale ku dhex yaala geedaha ugu dhaadheer waana kaymo aad u cajiiba halkanna waxa ku nool noolayaal aad u tiro badan oo dad iyo xayawaan isugu jira This is the Green Heart of Africa, one of the largest jungles on Earth. The trees stretch high to the sky and the roots run deep. It's a wild place. markay sida u soo gaaraan meesha ay dadkani deganaayeen markaaba way soo dhaweynayaan sida uu ninkani sheegayna waxay rabaan inay balla wadaagaan oo ay eegaan sida ay u nool yihiin iyadoo marka la eegayo qabiilkan oo lagu magacaabo Baka uu ka tirsan yahay ama uu ka mid yahay qabiilada loogu cunsuriyada badan yahay Afrika marka la joogo oo marar fara badan guryahooda iyo meesha ay degan yihiin iyo qiimahooda laga saaro sidoo kale la garaaco la takooro marka la eegayo nolosha ay qabiilkan ku nool yihiin waa nolol adag ayaa la odhan karaa dhanka kale sida uu ninkan inala wadaagayo waxyaabo far badan ay arki doonaan labada cisho ay la joogaan iyadoo ninkan iyo dadka cadaanka ay la socdaan laftarkoodu uu sheegay inaanay la yaabeyn nolosha ay ka arkeen halkan maadaama cid walba adduunka ka tirsan ay meel kusoo kortay dhaqan ay leedahay qabiilkana dhaqamadooda ayaan maanta la eegi doonaa ayuu sheegayaa They gotta be extra crispy. Look at that. Straight out of a horror film with the spikes and everything. ugu horreyna waxay la kulmayaanba gabadhan qabiilkan ka tirsan ee ilkaha loo qorayo oo loogu qorayo qaabkeen hore u soo sheegnay qofka maalinta ilkaha loo qorayo sidan ayaa loo soo dhaweeyaa naagahan ayaa soo raacaya kadibna halkan ayaa la seexinayaa sidaan imka arkayno caleemahan dhulka lagu wadhay ayaa lagu seexinayaa ninkii ilkaha u qorayna wuxuu soo diyaarsanayaa qalabkiisii kadibna sidaan arkayno waa la qabanayaa oo qorigan ayaa afka loo gelinayaa si ayna u dhaqdhaqaaqinna waa la wada qabanayaa It begins carving and chipping. Notice how Ngen is also missing her bottom few teeth. It's a common rite of passage in many African tribes. ninka ilkaha u qorayaana markaaba hawshiisa ayuu bilaabayaa sidoo kale naagtan imika ilkaha loo qorayo ilkaheeda xagga hoose way maqan yihiinba waana waxyaabo caadi ka ah Afrika qabiiladeeda marka la joogo mararka qaar waa markaad is odhan sacawaannimada xuma ama jahilnimadu qof dhan ayaa imika ilkiisa sidaa loo gelayaa oo weliba haddii qaab aayar loogu samaynayay xoog baa lagaga qorayaa ilkaha Power. Also, I'm told waxay aaminsan yihiin ilkaha marka qofka loo qoro inuu awood yeelanayo sidoo kale awooddii awowayaashooda kale uu yeelanayo iyo weliba sidoo kale inay ku cunaan hilibka adag ee kaymaha ay kasoo qabsanayaan sida la tijaabinaya marka imika ilkaha loo dhameeyo waatana way soo kacday waxaa lagu tijaabinayaa harga uu ninkani huwan yahay sida aynu imika u jeednana way ku baastay oo ilkaheedu si fiican baa loogu qoray ninkanna wuxuu inoo sheegayaa inuu waxaan moodayay marka hore in wax weyn la samaynayo laakiin markiiba loo dhameeyey sidaanu naagtan ilkeeda imika ka aragno way naxsantahay waayo waxaan wax lagula bariyo maaha qasab baa loogu samaynayaa
waqtiga nimanka ay soo gaadheen waa waqti casar gaabana caawana halkan uu imika gacanta ku fiiqayo ay seexan doonaan oo taandhadooda yar ay ka dhisanayaan maadaama casar tahay raggii qabiilkan badankooda ugaarsi ay ku maqan yihiin oo goordhow ay soo noqonayaan dhanka kale maadaama qabiilkan aan laga isticmaalin lacag iyo waxaa ciyaalkii raraa iyo qabiilka waxay u keeneen hadiyado oo kiish dhan oo beriisa ayaa loo keenay ciyaalkana waxay u keeneen biibiilayaal iyo waxay ku ciyaaraan iyagoo marka hore loo soo sheegay waxyaaba ay xiiseeyaan qabiilkan markii ay u imanayeen gadbad dhan oo 50 kiilo bariis ay u keeneen sidoo kale saliidda cuntada lagu karsado biyo sidoo kalena waxa uu sheegayaa in lala wadaagay inay aad u jecel yihiin tuwaakada laakiin tuwaakada uma keenin oo ciyaalka ay biibiilayaal u keeneen halkii ay tuwaaka uga keeni lahaayeen. These little huts are amazing. markana waxa weegaya buulashan yaryar ay ka samaysteen qoryaha dushan ay caleemaha ka saarsaareen sida uu ninkan inala wadaagayna waxa uu sheegayaa in qabiilo fara badan ilaa 15 qabiil gaadhay oo laamka booqday oo waliba wadamo kala duwan adduunka oo dhan ku kala yaala laakiin qabiilada Afrika oo 3 jeer soo booqday ilaa iminka uu iyaga aad u haysto. ninkan iyo ninka kale la socda waxay isku dayeen in ciyaalka madadaaliyaan oo khiyaamooyin yar oo farsamo macal ku sameeyaan sidaan ka arkayna labadooduba Didn't really work. inta kadib waxay arkayaan waxyaabo ka mid ah cashooyinka caaw cuni doonaan oo bahalladan la soo ururiyay oo la dubay ay caaw cuni doonaan sidoo ninkan imigayna tusayo waxaana inagula kaftamaya intuu midhan soo qabtay inuu imika cunayo laakiin imika sumbeleeda ilaa la duba ma cuni karo. Pretty sure that's poison. So we gotta cook it first, and then we can eat it. I'm told we'll have to wait on the caterpillars. So we move on. sidoo kalena madaxan meesha yaalla ee hadhaaga ah ayuu soo saarayaa isagoo sheegay inuu la qabsaday imika waxyaabaha inuu cuno oo calooshiisa ay la qabsatay intuu Afrika joogayna waxyaabo fara badan uu bartay intaa kadib ilaa habeenkii waxaa socon doona dabaaldegan la dabaaldegayo taasoo aan dabaaldeg keliya ahayn ee laakiin ay ku soo dhaweynayaan waxay caabudaan oo ay ku sheegaan inuu yahay naf ka soo baxaysa kaymaha waxayna aaminsan yihiin in waxan ay caabudayaan jinka lagu magacaabo uu yahay mid ka mid ah awoowayaashood kaasoo soo booqda oo keliya markay dabaaldegayaan meeshan dabka lagu shitay cabsida ayna ku soo dhaweynayaan si uu ugu imaado ninkan uu la yaaban yahayba sida ay u soo dhaweynayaan marka dambe sida iskaga fadhiya wixii ay sugayeen ayaa imanaya isagoo sidaan arkana waxaan yahay qof wax isku daday sidaynu jeednana waxaan ka arkaynaa in dadka wax walba la aaminsiin karo haddii laga dhaadhiciyo or when young men go from being boys to being men. waxaana aaminsan yihiin waxa uu yimaadaa xafladaha sidoo kale go'aamada ay gaadhayaan oo dhan isaga ayaa u go'aamiya oo u soo booqdaa mar walba marka ciyaarahoodii iyo xoogii iska dhamaysteen wuxuu dib iskaga noqday kayntii ama meeshuu wax ka soo xidhay baan odhan karnaa maadaama qof wax soo xidhay uu yahay caadi loo arkayo sida aan filayna qayladan lagu sii dhaweeya waa marka uu sii tagay qaylada loo qayliyo habeenkiina raggani taandhadooda yarada ay dhisteen ay iska geliyaan sida aynu halkan uga jeednana layrkoodii raaba shiteen nimankan maadaama oo kabiil laga soo saaray markay keynta soo geliyeen qodaxa iyo waxbaa soo mudmuday waa laga soo waalay baynu odhan karnaa raggan kuma dayan karaan har iyo habeen kabaala sidaa darteed qodaxyo ayay iska saarsaarayaan. Solid. Take a look. We're gonna do that. It's 10 p.m. We've been singing for an hour or so. Met a ghost. It was great. They're still going. But the hunt tomorrow morning starts at about 6 a.m. So that means we're up at 5:45, which means, yeah. subaxii markay soo toosaan ragganna waxaa la marmarinayaa waxa ay ismarmariyaan dadka qabiilkani markay ugaarsi tegayaan calaamadaha cadcad ayay isku sameeyaan laakiin iyagu waxay la yaaban yihiin ninka waxaan ku yaala ee taatuuga ah marka dambena waxay raacayaanba raggii si ay u soo ugaarsadaan saladahan ay qaataan si ay ugu soo ritaan waxa ay soo qabsadaan sidoo kale inta ay dhexda sii socdaanna way sii heesaan iyagoo wax sidaa u sii badanba sii socon meeshan ayay ku istaageen geedkan dad fara badanna waxay bilaabeen inay godod dhulka ka qodaan sidoo kale qaarna ay geedka qiiq ku shidaan hoostiisa wax kalena lama samaynayo waxaa la ugaadhsanayaa jiirar geedahan hoostooda ku nool dhammaantoodna waxay wada qodeen geedo qaar marooyin bay ku dadeen qaar qiiq bay ku shidayaan.
ugu dambeyntina sidaan arkayno jiirkan yar ayuu ninkani godka ka soo qabsanayaa laakiin waxa ka sii daran jiirkan aad ka weyn leh oo ninkan kale ka soo qabanaya godka isaguna waxa soo hawlo dhayldhaylo may qabanin jiirkan weyn ay meesha ku ogaayeen. Look at this jungle rat. It's like 8 pounds. I was wondering, why are we working so hard for a rat? But I get it now. It is like sidaynu u jeednaa ninkan caddaanka xusbar bardhigaya labadii jiira la soo qabtay saladoodina way ku ridanayaan meeshana way kasii soconayaan marka dambana sidaynu arkna ninkani droontiisa ayuu kicinayaa iyagoo dadkan ay la yaabayin waxa yara duulayo ninkana wadwado dhanka kale markay soo yaro socdaana dhoobadan ayaaba la soo dhexgelaya oo dirqa lagu dhaafayo ninkan caddaanka jilbaha ayuu joogtaa qoryahan yar ayaa la adeegsanaya si loo dhex maro dhoobadanna markay soo dhex galaan meeshan biyuhu fadhiyaan ayay labada dhinac ka moosayaan biyahana inta dhexda way ka dhurayaan si ay uga qabsadaan kalluumada yaryar iyo xayawaanada yaryar ku dhex jira. The shrimp, the snails, out of it because they'll be laying on the ground. Look, the water level's gone down already. sidoo kale marka ay sii socdaan ay kaymihi ay ku sii socdaan ninkan waxa ka furmaya bahalkii yar ayuu lugta iskaga xidhay sida uu sheegayna in kasta uu sito waxyaabii la isku daweynaya oo dhan uu gaadhiga ku sito laakiin haddana kaynta dhexdeeda ayaa laga helayaa wax walba oo la isku daweeyo iyadoo ay garanayaan dadkan ula socdaa waxay isku daweeyaan ay siinayaan geedkan loo xoqayo oo uu cunayo. We'll take care of later. This connection to nature is so valuable and rare. These days we're living in a Wi-Fi. in dhirtan lagu joojiyo qofka markay caloosha soconayso oo aanay caloosha ku xanuunayn haddii aad cunto waanu dhadhaminayaa. Tree that stops diarrhea. Comme ça? sidoo kale meesha markay ka soo dhaqaaqaan waxay helayaan malab geed dushii ku yaal oo shinni ku samaysatay sidaynu ka arkayno ninkan iminka la fadhiyaana waa ninka qabiilkan ugu qaabilsan kaymaha iyo wax walba oo ku saabsan dhirta waxaana loo aaminsan yahay inuu yahay ragga ugu aqoonta badan leh ee geedaha iyo wax walba loo adeegsada garanaya sidoo kalena wax walba oo kaynta ku saabsan og sidaa darteed sidaynu arkayno iminka waxa uu samaynayaa wixii lagu soo daban lahaa malabkaa shinnida ee lagu soo qabsan lahaa isagoo geedahan intuu isku xidhxidhay caleemahana dhex dhigaya si uu qiiq ugu shido kadibna xagga sare ayay u qaadayaan. qof ayaana la koraya si uu soo qaado malabka marka uu la dul korana malabka ayuu ku soo gurayaa waanu soo dejinayaa baashireedii salada la mooday ee caleemo dhex yaaleen oo malabkii lagu soo guray ayaa loo soo dhiibayaa dadkii oo dhanna way wada cunayaan malabkii. Normally they bring down the whole comb, but it's just it smells almost. kadibna waxay dib ugu soo noqonayaan meeshii ay degnaayeen ee guryahooda ahayd gelinkii dambe ayayna noqotay sida ninkan inoo sheegayna qoraxda ayaa sii dhacaysa markana sidaynu arkayno buulkan yar ayaa lagu dhacaa waad seexanaysaa gudaha ayaana u gelaya buulkan yar isagoo sheegaya inaanu sidan ku seexan karin gabdhahan ayaana caleemo u soo guraya si uu dhulka iskaga goglo kadib marka caleemaha looga soo buuxiyeen freshkiis yar ayuu soo qaadanayaa isagoona halkan seexan doona caawa laakiin intaa ka hor buulka yar ayuu ka soo baxayaa isagoona inala wadaagi doono waxa ay caawa ku cashaynayaan wax kalena maaha waa jiirarkii iyo xayawaanadii iyo wixii maanta o dhan la soo qabsanayey qabiilkani marka ay wax karsanayaan caleentan ayay ku duduubaan kadibna wixii ay doonayeen ay ku dhex guraan wayna dubaan sida uu iminka inoo tusayo dhammaanba wax caleenta ku dhex jiraana waa wixii ay meesha yare webiga ka soo qabsadeen biyaha ee markii dhoobada ay ka guriyeen oo iskugu jira alaalxidii kalluunkii iyo waxaa kale aynan garanayn. kadib marka ay jiirarkii kariyaan ee cuntada ay bislaato dhammaantood dadkii tuulada degan ee qabiilkan ka tirsanaa waxay ku soo ururayaan meesha lagu karinaya cuntada iyagoo sugaya bal raggani markay jiirarka cunaan inay ka helaan iyo in kale laakiin iyadoo cuntadii la sugayo weli aan laga gurin ninkana waxa uu ku fadhiisanayaa meeshii waanu jebinayaa isagoo ciyaalkiiba ka weyhinaya xataa laakiin haddana sidaasay tahay wixii waa la wadaagaajinayaa cuntadii ayay bilaabayaan inay cunaan madaxii ugu horreeyay ayuu soo qabsanayay jiirka madaxii jiirkana raggana way kala qaybsanayaan midna qaybtii hoos u qaadanaya midna qaybtii sare labada nin haddii aad muuqaal hore aanu soo gelinay janalkaa daawatay oo qabiil kale ay u tegayeen meel kastay tagaan raggan jiirar baa lagu soo dhoweeyaa waxaana imka sheegayaan in jiirarkii ay maalintii hore cuneen ama muuqaaladii hore ay ku cuneen inuu kani aad uga fiican yahay oo dhadhankiisu aad uga macaan yahay jiirarkiina sidaas ayay ku cunayaan sidoo kale dadkii kalena waxoogiba iska cunayaan marka cashada dhamaystaan buulkoodii yar ay iska aadayaan laakiin markay sidaa u galaan buulkii yar ay si dhahdaan seexda ee leerarka iyo kamarada xagga sare ay ku qabtaan waxay arkayaanba in xayawaano yarar ay ka buuxaan raggani way cabsadeenba markay caarooyinka waaweyn meesha ku arkeen laakiin haddana sidaasay tahay waxay ku adkaysanayaan inay caawa meesha seexdaan oo meel kale ay seexdaan ma hayaan ninkana sidoo kale wuxuu sheegayaa caawa caarooyinkan ay iska qanqaniineen laakiin beritoole ninkii kaymo inuu daweyn doono sidaasina buulkii yaraa ku seexanayaan cabsicabsida ahaa. Those are the biggest crickets I've ever seen in my life. Look at they're everywhere. Oh. So we're really doing this, right? Yes, mate. Oh my days! Fuck's sake, man. Okay, well we're in for an exciting night in our
authentic rustic accommodation. But tomorrow morning after we wake up, if we survive... laakiin haddana waxay yarkadib waxaan arkaynaaba oo muuqaal ku boodsiinaya ninkan iyagoo taandhadoodii yareed ku jira maadaama meesha ay seexan kari waayeen calooshuna ay aad u xanuuntay siday safar iyo balaayo cunayeen bay caloosha wada socotay sidaa darteed taandhadoodii yareed kama maarmayaan markuu soo toosay laftarkeedana wuxuu sheegay in caloosha ilaa iminka aad u casirayso ugu dambayntana sidaas ayay kusoo gabagabeynayaan safarkoodii sidii marka hore loo soo dhaweeyey ayaa imikana loo sii dhaweynayaa muuqaalkan halkaas ayuu ku eegyahay haddaba saaxiibayaal haddaad muuqaalkan ka hesheen fadlan like-ta noo saara sidoo kale channelkan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta noo saar aad baad mahadsantihiin